السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعدين adding fraction sidaas ku daro fractionka. Tusaalaha koobaad 2 afar 3 plus 4 afar 5 waxaan oo shaqeynaa saddex hab. Habka koowaad waxaa weeye hooseyaha isku dhafo maadaama ay kala duwan yihiin. hooseyaasha isku dhafo 3 loo dhufto 5 waa 15. 15 u qaybi 3 waa 5. 5 ku dhafo koreeyaha oo 2 ah. 5 hadaa loo dhufto waa 10 plus 15 mar labaad u qaybi 5 hooseyaha waa 3. 3 ku dhafo 4 waa 12. 10 ku dar 12 waa 22 loo qaybiyay 15 oo hooseyaha ah. sidaas oo shaqeyn kartaa. sida kale oo shaqeyn kartaa waxaa weeye 2 loo qaybiyay 3 plus 4 loo qaybiyay 5 waxay la mid tahay hooseyaha isku dhafo 3 lagu dhuftay 5 waa 15. kadibna isticmaal cross isbedelasi. 2 ku dhufo 5 waa 10 lagu daray 3 ku dhufo 4 waa 12. kadibna isku dar 10 iyo 12 waa 22 loo qaybiyay 15. sidaasna waa habka labaad. habka saddexaad waxaa waaye habkan oo ah 2 loo qaybiyay 3 lagu daray 4 loo qaybiyay 5. hooseyaasha 3 iyo 4 iyo 5 waxaa ku dhufataa fractionka hore. 3 waxaa ku dhufataa fractionka dambe. 5 hadaa lagu dhufto fractionka hore waa 5 lagu dhuftay 2. haddana hooseyaha ku dhufo 5 lagu dhuftay 3. 3 waxaa ku dhufataa fraction dambe 4 lagu dhuftay 3 iyo 5 lagu dhuftay 3. 5 hadaa lagu dhufto waa 10. 5 hadaa 3 lagu dhuftana waa 15. 4 hadaa 3 lagu dhuftana waa 12. 5 hadaa 3 lagu dhuftana waa 15. hooseyaasha waa isku mid. hal xabo kasoo qaado kadibna koreyaasha isku dar. 10 lagu daray 12. 10 hadaa 12 lagu daro waa 22 loo qaybiyay hooseyaha oo 15. dhammaantood waxaa soo baxay 3 qayb oo shaqeynaba 22 loo qaybiyay 15 oo jawaabtooda isku mid ah. 5 loo qaybiyay 3 lagu daray 2 loo qaybiyay 4 waxay la mid tahay hooseyaasha isku dhufo waa 3 hadaa 4 lagu dhufto waa 12. 12 3 u qaybi waa 4. 4 ku dhufo 5 waa 4 hadaa 5 lagu dhufto waa 20 plus 12 ku dhufo 4 waa 5. 5 qaybi 4 waa 3. 3 lagu ku dhufo waa 6. kadib 6 iyo 20 isku dhufo isku dar waa 26 loo qaybiyay 12. habkaas waa habka koobaad. habka labaad waxaa waaye 5 loo qaybiyay 3 plus 2 loo qaybiyay 4 waxay la mid tahay hooseyaasha isku dhufo 3 4 ku dhufo waa 12. kadibna cross isticmaal. 5 4 ku dhufo waa 20 plus 3 2 ku dhufo waa 6. 6 iyo 20 isku dar waa 26 loo qaybiyay 12. habka saddexaad waa habkan. waxaa ku dhufataa hooseyaasha fractionka koowaad. fractionka koowaad oo siisana oo 3 ah waxaa ku dhufataa fractionka dambe. 4 5 ku dhufo waa 20. 4 3 ku dhufo waa 12. 2 ku dhufo 5 waa 6. 4 3 ku dhufona waa 12. hooseyaasha isku mid. hal xabo ka qaado kadibna koreyaasha isku dar. 20 iyo 6 isku dar waa 26 loo qaybiyay hooseyaha oo ah 12.
loo qaybiyey afar balaas hal loo qaybiyey saddex. hooseyaha isku dhufo afar saddex ku dhufo waa 12 afar u qaybi waa saddex shan ku dhufo waa 15 balaas 12 saddex u qaybi waa afar hal ku dhufo waa afartii 15 iyo afar isku dar waa 19 loo qaybiyey 12. habkaas waa habka koowaad. waxaan sameynay 5 loo qaybiyey afar balaas hal loo qaybiyey saddex. hooseyaas isku dhufo waa kala duwan yihiin. haddii mar unka ay kala duwan yihiin hooseyaha waa isku dhufanay. afar saddex ku dhufo waa 12 kan afarta u qaybiyo waa saddex 5 ku dhufo waa 15 lagu daray 5 u qaybi 3 u qaybi waa afar hal ku dhufo waa afartii 4 iyo 5 isku 15 isku dar waa 19 loo qaybiyey 12. habka labaad 5 loo qaybiyey afar balaas hal loo qaybiyey saddex. waxay la mid tahay hooseyaha isku dhufo afar iyo saddex isku dhufo waa 12 kadibna cross isticmaal 5 saddex ku dhufo waa 15 balaas afar hal ku dhufo waa afartii kadibna 5 iyo afar isku dar waa 19 loo qaybiyey 12. habka saddexaad waa habkan hooseyaha afarta ah fractionka labaad ku dhufo hooseyaha saddexana fractionka koowaad ku dhufo 5 saddex ku dhufo waa 15 saddex afar ku dhufona waa 12 hal afar ku dhufo waa afar saddex afar ku dhufona waa 12. hooseyaha waa isku mid hal xaba ka qaado kadibna koreyaas isku dar 15 lagu dar afar waa 19 loo qaybiyey 12. maanta waxaa soo baxaya 19 loo qaybiyey 12. example-ka afraad uu ka duwan yahay example-yadii aan hadda soo marnay oo hadda waxaan soo marnay laba fraction oo kaliya ah. tusaale 2 loo qaybiyey afar balaas 3 loo qaybiyey 5 waa laba fractionkan iyo fraction kaliya. hadda laakiin waxaan baraynaa 3 fraction 1 2 3. waxaana oo shaqayn karnaa fractionkan 3 xaba ah iyo wixii ka badan laba hab. habkood waa habka labaadna waa habka koowaad wuxuu dhahayaa hal loo qaybiyey afar balaas 5 loo qaybiyey 6 balaas hal loo qaybiyey 2. maadaama uu 3 fraction tahay waxaan sameynaa hooseyaasha afarta 6 iyo 2 ayaan waxaan raadinaynaa LCM kooda. LCM ka waxaa laga lowest common multiple. 4 iyo 6 iyo 2 maxaa ka dhexeeya oo hal tiro ka dhexeeya rabaa. waxaa ka dhexeeya 2 afar hadaa u qaybiso waa 2 hadaa saddex u qaybsana waa 3 hadaa hal u qaybsana waa 1 mar labaad 2 saar 2 u qayb waa 1 saddex loo qaybiyo uma qaybsato soo qaado 3 u saar 3 u qayb waa 1 kadibna afartii 2 iyo 2 isku dhufo waa 4 kadib ku dhufo 3 waa 12. waxaad u qaybisaa fractionka koowaad 12 u qaybi 4 waa 3 ku dhufo koreeyana 3 ku dhufo mar labaad 12 waxaad u qaybisaa fractionka koowaad hadda 12 6 loo qaybiyo waa 2 ku dhufo korna 2 ku dhufo mar saddexaad 12 waxaad u qaybisaa 2 fraction saddexaad hadda 12 2 loo qaybiyo waa 6 ku dhufo halkana 6 ku dhufo. haddaa 3 hal lagu dhufto waa 3 haddaa
saddex afar lagu dhuftana waa 12 labo shan ku dhufo waa 10 labo shan lix ku dhufana waa 12 lix hal ku dhufo waa 6 labo ku dhufo waa 12 saddex fraction ba waxay ka sameeyeen hooseeyaha oo isku mid hadii isku mid yihiin hal xab ka qaado 12 kwa kadibna isku dar korayaasha 3 lagu daray 10 lagu daray 6 saddexda 10 lagu dar waa 13 daa 6 lagu daran waa 19 loo qabiy 12 habka labaad waa habkan hal loo qabiy 4 lagu daray 5 loo qabiy 6 lagu daray 1 loo qabiy 2 RCM kun waa soo baranay oo wuxuu ahaa 12 adaan 12 ha marka hore RCM ka waa wuxuu ahaa 12 kadib fraction koowaad iyo labaad u qaybi 12 u qaybi 4 waa 3 hal ku dhufo waa 3 12 lix u qaybi waa 2 kadibna 5 ku dhufo waa 10 hada 3 iyo 10 isku daro waa 13 loo qabiy 2 kadib fraction saddexaad soo ku dar jawaabta soo heshay 13 loo qabiy 12 soo helnay waxaan ku daraynaa fraction saddexaad oo ah hal loo qabiy 2 RCM kooda waa 12 u qaybi waa hal ku dhufo 13 waa 13 kadibna 12 u qaybi 2 waa 6 hal ku dhufo waa 6 kadib waxaa soo dartaa korayaasha 13 ku dar 6 waa 19 waxa loo qabiy 12 jawaabtan iyo jawaabtan waa isku mid oo saddex fraction iyo wixii ka badan ba laba hab oo isqan kartaa ashirkeena halkaas ayuu maanta ku yahay. Wassalaamu calaykum.